munaasabada tababar loogu furayay dufcadii afraad ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland gaar ahaan magaalooyinka Burco iyo Wajaale ayaa maanta lagu qabtay xarunta taliska guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen wasiiru dawlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, taliyayaasha ciidanka dabdamiska Soomaaliland, agaasimaha fulinta ee ciidanka dabdamiska, xubno kamid ah gudida sare ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland. agaasimaha fulinta ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland Cabdulqaadir Cumar Xaashi ayaa ugu horeyn mas'uuliyiintani faahfaahin ka siiyay muddadii uu jiray ciidanka dabdamiska Soomaaliland iyo sidoo kale dufcadihii kala duwanaa ee ciidanka dabdamiska ee la tababaray. halka waa cutubiyada Hargeysa ee dabdamiska qaranka loo tababaray muddada 3 sanadood ee barka laga soo bilaabo 2014 bishii shanaad 17keedii isla markaana ku soo tababar qaatay sida loo badbaadiyo nolosha iyo maalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. run ahaantii laga soo bilaabo taariikhda wixii ka horeeyay Soomaaliland may lahaan jirin badbaadiyaal iyo xubno u carbisan badbaadada nolosha iyo maalka. waana farxad run ahaantii in qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midhihii xukuumaddan mudane Axmed Maxamuud Siilaaye iyo xisbiga kulmiyada aad maanta indhihiina ku aragtaan. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland gaashaanle sare Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili waxaanu ciidanka maanta tababarka loo furay u soo jeediyay hadallo dardaaran iyo dhiirigelin bay iskugu jiraan. sidoo ku yimid dabdamiskani marka ugu horeysa waxa ammaan iyo sharaf leh dawladeena maanta noo garab siisay marka ra'yiga la tagnay noo garab siisay dhistay ciidankii ugu horeeyay dabdamiska qaranka ee Soomaaliland uu yeesho. sababtii ma Hargeysa ku bilownay 30 number ku bilownay markii ugu horeysay maanta 140 baa halkan maraya oo Hargeysa inta kuma joogin dawladdu gacan ugu siisay gobolada ayaanu gaadhnay sababtiiba Burco oo idinku waa soo ka socotaan Wajaale 15 baa ka socda Booramena 25 ayaa markaa u diyaar waxaan ku tala jirnaa oo dawladdu nagu dhiirigelisay inaan gobolada oo dhan ee Soomaaliland dabdamiska ka sameeyno. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Jaamac Cabdulaahi Biin waxaanu ugu horeyn soo dhaweeyay ciidankan cusub ee maanta tababarka loo furay. waxaan idinku soo dhaweynaynaa danahay wasaaradda madaxda ciidanka dabka waxaan idin leeyahay marka hore soo dhawaada ku soo dhawaada dalkiina iyo dadkiina oo wax u tartaan. camalka waxa ka weyn shaqada qofka loo diraa hadday tahay mid dadka anfacda oo ajar leh wuxuu qaadanayaa way barakoobaysaa. gabagabadii munaasabadaasi waxaa soo gunaanaday wasiiru dawlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye waxaanu ku dheeraaday sida ay ka xukuumad ahaan uga go'an tahay inay soo saaraan ciidan tayo leh isaga oo ciidanka maanta tababarka loo furay u soo jeediyay in ay si hagar la'aan ah ay dalkooda iyo dadkooda ugu shaqeeyaan iyaga oo waajibka saaran u yahay inay badbaadiyaan naf iyo maalba. soo biirtay oo wixii u weynaa ay hantiya ee ummadani lahayd u soo diyaar garowday inay badbaadiso oo ah naf iyo maal. halkan u timaadeen inaad badbaadisaan oo ka badbaadisaan ilaahay naguma keenee dab iyo wixii saamayn ku leh dalkeena waxa u soo diyaar garowdeen inaad badbaadisaan hantida ummadan leedahay ee taala bad iyo bari. dawladda Axmed Maxamuud Siilaaye oo hogaaminayo xisbigiisu waxyaabo badan oo la taaban karo maanta waan u maleynayaa dee kulle waxna waa akhrisataan oo rag loo soo xulay baa tihiin oo la weydiiyey marka horeba aqoontoodii haddaa gashaan waxaan la isticmaalay warbaahinta
adduunka yani war aan la inagu soo dirin ama language aan la inaga hadlayn ma jiro maanta oo Soomaaliland laga hadlayo waxa baqaha la yiraahdo waxa ma taro nin dhiiran baa dadna wuxuu qaban karaa dalla wuxuu qaban karaa Maxamed Siciir oo Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.